dekada magaalada Berbera waxaa maanta soo gaadhay deeqo raashin ay soo dirtay dowladda Imaaraadka Carabtu taasi oo ay kaga qayb qaadanayso gurmadka abaaraha loogu jiro bulshada ay soo food saareen xaaladaha abaareed ee ku sugan deegaanada kala duwan ee Soomaaliland. Rasmad ballaaran oo deeqdaasi lagu kala wareegay waxaa ka soo qayb galay maareeyaha dekada Berbera, barasaabka gobolka Saaxil, gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka, safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliland, iyo agaasimaha waaxda gargaarka ee hay'adda Narfor. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliland Abdallah Naqbi, waxaana uu ka warramay deeqda raashinka ay ku wareejinayaan xukuumadda Soomaaliland taasi oo kaga qayb qaadanayaan gurmadka loogu jiro bulshada ay soo food saareen xaaladaha abaareed. وجميع الأشقاء في صوماليلاند نحن لولا وجهودكم ومساعدتكم لنا لما قمنا بعملنا على هذا الوجه الأكمل، وأنا شاكر لكم وجميع الأخوة في دولة الإمارات شاكرين لكم ومقدرين المساعدات التي تقومون وتقدموها لنا على الوجه الأكبر. agaasimaha waaxda gargaarka ee hay'adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka, maareeyaha dekada Berbera, barasaabka gobolka Saaxil oo iyaguna dhankooda ka hadlay ayaa tilmaamay dowladda Imaaraadka Carabtu sida ay u garab taagan tahay Soomaaliland iyo deeqaha kala duwan ay soo gaarsiinayso si ay uga qayb qaadato gurmadka loogu jiro bulshada abaaraysan ee Soomaaliland ku nool. قمنا باستلام مساعدات خيرية من خليفة الإنسانية، لذلك نشكر الإمارات لما تقدمه، وعلى رأسهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وجميع مسؤولين مؤسسة خليفة الإنسانية. 3,158 raashin loogu talagalay qoysaska ay halkan yaalaan. anagana waajibaadkana saaran waxa weeye inaan u fududeyno oo sida ugu dhaqsaha badan loo gaarsiiyo dadka u baahan raashinka insha Allah bidmillaahi tacaala. marka hore waxaan u mahadcelinayaa barasaabka gobolka Saaxil wada shaqaynta iyo isku dubaridka baahiyaha gobolka sidoo uga shaqaynayo. waxa kale oo u mahadcelinayaa Faysal Ali Sheekh oo intii abaarahani jireen run ahaantii aanay suura gasheen haddaanu joogin in qaybinta degdega ah guud ahaan dalka oo dhan maadaama abaartu saameysay. salaan kadib marka hore Ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala. marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Imaaraadka oo maanta halkan aynu kaga gudoomayno raashinka tayada leh ee kala duwan ee ah 3,158 qoys oo runtii aan ahayn markii ugu horeysay ee Imaaraadku caawimo u keeno dadka reer Soomaaliland ee abaaro waxyeeleeyeen. xilligan aynu ku jiraana waa xilli abaaruhu ay runtii aad u jiraan. waan uga mahadcelinaynaa dhammaantood safiirka iyo dowladda wakiilka yahay ee Imaaraadkaba. gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka mudane Faysal Ali Sheekh Maxamed oo munaasabadaasi gabagabadii ka hadlay ayaa u mahadnaqay dowladda Imaaraadka Carabta deeqaha istaba joogga ay la garab taagan tahay bulshada ay soo food saareen xaaladaha abaareed ee ku sugan deegaanada kala duwan ee Soomaaliland. maanta oo taariikhdu tahay 29 bisha March 2022 waxaanu joognaa dekadii Soomaaliland ee Berbera Port oo aanu maanta kala wareegayno mucaawino ay noo fidisay dowladda Imaaraadka Carabta. boqor Khalifa xafidahullah waliyul ahdiga Maxamed bin Zayed bin Al Nahyan, safiirka Soomaaliland u fadhiya Abdallah Naqbi, iyo dowladda iyo dadweynaha reer Imaaraatis dhammaantood waxaan leeyahay waa idka gudoonay. aad iyo aad baanan ugu mahadcelinaynaa dadaalka iyo taakulaynta mar walba ay nala barbar taagan tahay dowladda Imaaraadku. Arsa Qurbaani, warbaahinta qaranka, magaalada Berbera.